su'aasha kale, assalaamu calaykum saaxiib, waxaan ku weydiinayaa aakhiro marka la tago dadka naarta ku waarayo waa gaalada, marka ma jiraan muslimiin ku waaraya naarta? Allah ha inaga badbaadshe, aamiin. aayadda kitaabka qur'aanka, waman qafat mawaasiinuhu fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama qaaliduun, micnaheedu ma aha sida ay mufasiriintu leeyihiin in dadka dembiilayaasha xitaa in abadiyan jahannamo ay ku waarayaan. aasaaska cidda jahannamo ku waari doonta waa dadka kelimada tawxiidka aanan ku dhiman ee gaalada ah. qof welibase marka uu dhinto waxa uu geli doonaa jahannamo. wa in minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya. dadka qaarkood iyaga oo cadaab aanan la kulmin ayay jahannamo ka soo bixi doonaan. qofka dembiilaha ahaana haddii uusan shafeeca xitaa uusan helin, dembigiisu inta uu la eg yahay ayuu jahannamo ku dhex jumi doonaa, kadibna abadiyan ehlu janno ayuu qofku noqon doonaa, sida xadiiska nebiga nabadgelya naxariis korkiisa ahaatee ku soo aroortay. qof waliba oo qalbigiisa waxyar oo iimaan isaga oo ku jiro dhintaa, abadiyan jahannamo kuma uu waari doono. aayadda 93 ee suuradda nisaa, culimmadu waxa ay ku fasireen in qofka dembiga weyn ee dilka sameeyey xitaa in muddo dheer uu ku nagaan doono jahannamo, kadibna ugu dambeyn qofka muddadaa dheer kadib waxaa loo soo wareejin doonaa jannada. si kooban, qof aanan gaal ahayn oo jahannamo ku waaraya ma uu jiro. ugu dambeyn qof walba dembigiisii inta uu la eg yahay marka laga dhaqo ayaa jannada loo wareejin doonaa.